Hi Legend, sirta halkan lagu soo koobay maanta waxaan doonaynaa inaan sharaxo filim majaajilo madow ah oo Hindi ah oo faldambiyeed kicinaya. Beeraley ku sugan duleedka Pune ayaa bakeelo dhibay. Wuxuu ku daba eriyaa neefka qori oo ujeedadiisu waa rasaas xoog leh. Rasaas xoog leh ayaa la maqlayaa iyadoo muraayadda ay bannaan tahay. Meel Pune ka tirsan waxaa ku nool nin biyaano yaqaan oo kartila oo la yiraahdo Akash. Kaligiis ayuu nool yahay, waxna kariyaa oo uu nadiifiyaa naftiisa inkastoo uu taal daran yahay. Akash waxaa si joogto ah u dhiba ilmo uu malaynayo inay indho laayihiin. Ilmuhu meel fog ayuu u socdaa si uu isugu dayo inuu caddeeyo aragtidiisa, laakiin weli kuma guulaysan. Subax kadib markii uu dhibay ilmaha sidii had iyo jeer caadadu u ahayd, Akash wuxuu aadaa dukaanka muusiga. Waxaan ogaanay inuu qorsheynayo inuu u guuro London hal bil gudaheeda si uu uga shaqeeyo baar caan ah. Mulkiilaha dukaanku wuxuu u maleeyaa inuu yahay nin ku wanaagsan inuusan ogolaanayn araggiisa daciifka ah. Kadib waxaana la baray jilaagii hore ee Bollywoodka Paramod Sinha wuxuu la nool yahay xaaskiisa da'da yar ee Simi oo ku taala dhinaca sare ee Pune, inkastoo inta badan lagu dhaleeceeyo faqiirkii da'da ahaa. Waxay si farxad leh isku guursadeen. Marka laga reebo Simi, Paramod qoyskiisa waa inantiisa oo ka timid guurkiisii ugu horreeyay. Dani lama noola lamaanaha balse marmar bay booqataa. Maalin galab ah, Akash waxaa ku dhacay mootada isagoo isku dayay inuu wadada ka gudbo. Darawalka waa gabadh lagu magacaabo Sofia, taasoo dareento murugo xitaa kadib markay caawisay. Waxay ku casuuntay qado raaligelin ah. Waxoogaa way wada sheekaysanayeen oo markay ogaadeen in Akash uu yahay biyaano yaqaan. Sofia waxay ku casuuntay inuu bandhig faneed ka sameeyo maqaayadda aabaheed. Maalintaa kadib Akash waxa uu ku soo noqday guriga oo waxa uu iska bixiyay muraayadihiisa oo ay wehelinayaan muraayado ceeriyaamo leh. Tani waa markii la ogaado inuu ka been sheegay inuu indho la'aan yahay. Uu isku dayay sidii lagu socodsiin lahaa dareenkiisa hal abuureed. Indho la'aantu waxay siinaysaa aragti muusig oo aanu si kale u arag. sidaa darteed waxa uu ku noolaa been dhowrkii sano ee la soo dhaafay oo uu ku sameynayo xirfad. Maalintii xigtay wuxuu aadayaa maqaayad Sofia markii ugu horeysay oo uu ciyaaro piano. Qof kasta aad buu ula dhacay, badi sababtoo ah waxay u maleynayeen inuu indho la'yahay. Si kadis ah, Paramod sidoo kale waxa uu joogaa maqaayadda. Si la mid ah waxaa cajab geliyay Akash sanad guuradii saddexaad ee arooskiisa iyo Simi waa maalmo yar gudaheeda. Wuxuuna jecel yahay inuu kaga yaabsado muusig toos ah. Akash wuxuu u ballan qaaday inuu imaanayo gurigiisa si uu ugu ciyaaro, sababtoo ah jiliinku wuxuu rabaa in maalintaas ay noqoto mid la yaab leh. Wuxuu u been sheegay Simi inuu ka maqnaan doono magaalada. Simi way xanaaqday laakiin way fahamtay in ninkeedu yahay nin mashquul ah. Markaad shaqada ka soo laabanayso Sofia waa inay joogtaa guriga. Akash roobka dartiisa wuxuu iska dhigayaa inuusan eegin markay dharkiisa hortiisa ku bedelanayso. Labadu waxay dareemayaan dhimbilo ka dhex dhashay maalmihii la soo dhaafay oo ay wada joogeen. Waxay bilaabeen inay istijiyaan oo ay wada hoydaan. Goobta soo socota Akash waa bannaanka aqalka Paramod. Simi ayaa albaabka ka furtay oo ka codsatay inuu baxo sababtoo ah ninkeeda guriga ma jooga. Akash wuxuu ku adkaystay inay ahayd inuu halkan joogo, laakiin ma ay dhagaysan. Si kastaba ha ahaatee, markii deris duq ahi uu arko Simi waxa uu dareemaa raaxo la'aan. Waxaana uu ogolaaday Akash inuu soo galo. Ninkii biyaanaha tumayay waa ka naxay xuduntiisa, laakiin ma joojin ciyaaristii. Simi way iska indho tirtay meydkii ninkeeda iyadoo u malaynaysa in maadaama Akash inay haysato waqti ku filan oo ay ku qariso. In yar kadib waxa uu soo baxay dhanka musqusha oo wuxuu si buuxda u eegay ninkii dhintay. Intuu isqaboojinayo ayuu galay musqusha kaliya si uu u arko in nin ku dhuumanayo gudaha. Akash wuxuu ku fiirsadaa hortiisa oo uu ku soo noqday biyaanadiisa isagoo aan iska dhigin inuu argagaxsan yahay. Dib u soo celintu waxayna tusinaysaa in Simi iyo ajnabigu ay kala haayeen arrin dhabarka dambe ee Paramod. Markii la qabtay ayay argagaxeen oo ay toogteen. Inta Akash uu sii wado ciyaarta, gacan ku dhiglayaashu waxay nadiifiyeen wasaqda oo waxay ku rideen meydka Paramod shandad. Dabadeed Simi wuxuu iska dhigayaa inuu la hadlayo Paramod isagoo isku dayay inuu u ekaado inuu ku soo laabto guriga. Akash oo ka garab ciyaaray ayaa baxay kadib markuu maxsalaameeyay. Dibadda waa inuu fadhiistaa in muddo ah si wax walba uu qaato oo uu go'aansado waxa uu samayn doono marka xigta. Waxa uu yimid iibiye tigidh bakhtiyan nasiib ah oo maxalli ah oo lagu magacaabo Saqu. Waxay u soo bandhigtay inay ku caawiso iyadoo ugu yeedhaysa rickshaw. Darawalka rickshaw Murli waxa uu Akash u aqoonsan yahay macaamiil joogto ah oo uu keeno saldhigga booliska codsigiisa. Akash waxa uu go'aansaday inuu booliisku u sheego waxa uu arkay, laakiin ilbiriqsiye ka hor inta uusan sidaas samayn waxa uu yimid kormeero biliisa Manahol. Waa isla ninkii Simi gacan ka geystay dilka. Akash waxa uu xayiro xukunka dhexe oo uu iska dhigay inuu ka cabanayo dilka bisadiisa. Manahol isla markiiba wuu gortay oo raacay gurigiisa si uu u soo eego inay run tahay sheekada bisada dhimatay. Waxa kale oo uu rabaa inuu hubiyo Akash dhab ahaantii inuu indhoolo yahay oo aan waxba ka ogeyn geerida Paramod. Si uu sidaas u yeelo waxa uu ku tuuray mindi, laakiin Akash kama weecan.
kadib markuu kormeeruhu baxo akaash wuxuu aadaa maqaayadda uu ka shaqeeyo simi sidoo kale waxay timaadaa maqaayadda iyadoo si caadi ah dadka ugu sheegaysa in ninkeedu shaqo ku maqan yahay kadib subaxa xiga dhimashada Barman waxaa laga sii daayay wararka sida kiis dhacay waxaa laga helay gudaha gaadhigiisa meel bundaha iyadoo oo saacadiisa iyo dahabkiisa ay maqan yihiin maana hor kiiskiisa gacmihiisa ayuu ku qaatay si uu u hubiyo in runtu weligeed soo bixin si loo baaro inanta Barman ee Dani Simi iyo Akash ayaa loogu yeeray saldhigga booliska Dani waxay kalsooni ka doonaysaa Simi iyadoo aan ogeyn inay dishay aabaheed dhanka kale Akash uu ka gaabsaday inuu runta sheego isagoo ka baqayo inuu ku dhamaado sida Barman markii aaska diriskooda Mrs. DSA oo aragtay Akash oo guriga yimid ayaa u timid nin booliis ah waxay isha ku haysaa guriga deriska maalinta dhimashada waxayna ogtahay in wax sheekadu maqan yihiin Simi waxay u malaynaysaa in naagtii hore ay dhibaato ku noqon doonto haddii ay kiiska gasho marka xigta ay keligood joogaan waxay ka soo riixday Marwa DSA balakoonka weyna dishay nasiib darrada Akash waa uu ka marakacaya dhacdada oo waa inuu iska dhigaa inuusan mar labaad waxba arkin si degdeg ah ayuu guriga ugu yaacay oo wacay Sofia isagoo qorsheynaya inuu u sheego wax walba waxa aanu garanay ayaa ah in ilmaha jaarka ah ay dhibsada uu ka qaadayo muuqaal isku mar ah Sofia ka hor Simi wuxuu yimi gurigiisa isagoo siinaya nacnac aaska Barman Akash ilaaladiisa oo ku marti qaaday gudaha wuxuu sameeyay kafee oo u soo jeestay si uu u arko Simi oo xidhan weji ruuxaana waxay rabtaa inay ka naxdo oo ay ku qabato beenta laakiin wax falcelin ah kama siiyo markay sheekaysanayaan Simi wuxuu ku fiiqaa qori taasoo ka dhigaysa Akash inuu nadiif noqdo waxa uu ku dhaartay in aanu cidna u sheegin dilka oo isla markiiba u guuri doono London isla markiiba wuxuu dareemay dawaqaad oo uu miirbeelay waxa soo baxday in Simi ay maandoorisay macaankii ay u soo bandhigtay markii Sofia u timaado inay la kulantay isaga cunugu wuxuu tusiyaa muuqaal cadeynaya in Akash aanu indho lahayn si cara leh ayay albaabkiisa ugu soo garaacday waxay iska dhigaysaa inay la seexatay Akash oo weli miyir daboolan Sofia oo qalbi jaban ayaa kacday intaa kadib Akash saacado kadib ayuu la soo toosay dareen qariib ah oo indhihiisa ku jira wuxuu isku dayay inuu furo oo uu ogaado inuusan waxba arki karin runtii Simi wuu indho tiray marka xataa hadduu isku dayo inuu runta sheego dadku ma rumaysan doonaan waxa uu wacay Sofia si uu gargaar uga helo balse way xanibtay nambarkiisa iyadoo uga tagtay wax ikhtiyaar ah dhanka kale dhacdooyinka waxay sababeen hoos u dhac ku yimid xiriirka Manhor iyo Simi uu ka cadhooday inaanu dilin Akash halkuu isagu indho tiri lahaa Simi waxa ay ku dood inaan ahayn dilaal taxane ah iyadoo oo u dirtay si uu u dhameeyo shaqada markii ay madoobaatay booliiska ayaa soo galay oo isku dayay inuu dilo pianista Akash wuu dhibtoodo oo maareeyay inuu baxsado kadib markii uu waxyeelay si kastaba ha ahaatee waxa ku adag inuu dhex maro xaafadda kadib markuu indho la'aan yahay subaxdii waxa uu ka soo toosay isbitaal ay ku hareeraysan yihiin Dr. Swami darawalkii rickshaw ee Murle iyo iibiyihii tikidhada baqtiya nasiibka saaqu waxa ay xalay ka heleen wadooyinka oo ay keeneen isbitaalka Dr. Swami waxay ballan la samaystay dhakhtarka indhaha markuu Akash codsado muhiimadiisa koowaad waa in indhihiisa la eego kadibna uu dalka ka baxsado si kastaba ha ahaatee saacado ayaa dhaafa laakiin weligiis looma geyn dhakhtarka dibadda saaqu Murle iyo dhakhtarku waxay ka wada hadlayaan qadarka lacagta ay ku dhow yihiin inay helaan waxay qorsheynayaan in xubinta Akash ku iibiyaan suuqa madow maadaama uu yahay bartilmaameed sahlan oo aan lahayn xubno qoys markii ay saareen sariirta isbitaalka Akash waxa uu maqlay iyagoo ka hadlaya qaliin iyo argagax way xakameeyeen isaga iyagoo cadeynaya inay qorsheynayaan inay wax xun sameeyaan way suuxiyeen laakiin ka hor inta aanu bixin Akash waxa uu sheegay in saaqu ay cududeeda ku leedahay tattoo Lord Shifa saddexduba way naxeen sababtoo qofna weligii uma sheegin isagu inuu tattoo ku leeyahay waxay u maleynayeen inay tahay calaamad Ilaahay ka timid oo waxay go'aansatay inay ka laabtaan qorshaha markii uu soo toosay Akash waxa loo sheegay in la dilayo kooxdu waxay weydiinaysaa inuu run ahaantii indho la'ya iyo in kale Akash waxa uu cadeeyay oo u soo jeediyay hab ka wanaagsan oo ay lacag ku sameyn karaan wuxuu rajaynayaa inay lacagta helaan oo ay naftiisa u turaan oo ay sii daayaan dabadeed wuxuu u sheegay wax walba oo ku saabsan Manhor Simi iyo sida ay u dileen ninkeeda laakiin waxa uu ku daray in gacan ku dhigliyaashu ay haystaan $1 milyan oo ay la wadaagi karaan kooxda haddii la cadeeyo indhahooda waxay la dhalaanayaan hunguri weyni waxayna go'aansadeen inay caawiyaan Akash intaas kadib muuqaalka soo socda Simi waxay ku soo laabatay guriga si ay u aragto Akash oo piano la ciyaaraysa Dani way ka naxday geesinimada ninkan waxayna ka walwalsan tahay inuu runta ka shifo sidaa darteed si degdeg ah ayuu u wacday Manhor oo waxay ka codsatay inuu yimaado meel intaa kadib waxay isku dayday Akash inay raacdo si ay u geyso Manhor oo ay u disho intii ay sii socdeen Akash waxa uu weydiistay 10 lakh rubi si uu afkiisa u xidho si uu helo xubinta taranka way diiday inay siiso wax lacag ah laakiin Akash wuxuu hore u haystay qorshe keeda Murle rickshaw waxay xanibaysaa baabuurkooda waxayna Akash dejisay Simi
marka ay mashquuliso dabadeed kooxdu way afduubeen iyagoo rajeynaya inay Manohor weydiistaan madax furasho aad u weyn oo ay noloshooda ku bedeshaan. marka xigta Akash wuxuu wacay xaaska Manohor ee Rasika oo u sheegay wax walba. waxaa la weydiistay inay siiso $1,000,000 rubi berito haddii aanay doonayn in sumcadda ninkeeda la dumiyo. Rasika oo leh arrimo cadho ah ayaa maskaxda ka luntay. waxay ugu hanjabtay inay dili doonto ninkeeda marka uu helo telefoon. booliisku waxay ka heleen Simi baabuurkeeda buundada oo wadata kabaheeda iyo boorsada. marka la eego waxay u muuqataa inay samaysay wax aan la malayn karin. Rasika ugu dambeyn isteji oo waxay ka fikirtaa qaab lagu xalliyo dhibaatada. dhanka kale Simi wuu ka argutay oo diiday inuu la shaqeeyo si loo cabsi geliyo. takhtarku wuxuu soo saaray dhiiggeeda oo wuxuu ugu hanjabay inuu lacag ku iibinayo kelida. maalintaas kadib Manohor wuxuu la yimid kiis ay ka buuxda lacag madax furasho ah. markay ku dhow yihiin inay fuliyaan tallaabada xigta ee qorshaha, Saaqu iyo Murle waxay qiyaameen Akash. waxa ay ku xidheen kursi oo ay u yaaceen bannaanka si ay keligood u sii wadaan qorshaha. kuma kalsoona Akash oo waxay rabaan dhammaan lacagta naftooda si la yaab leh. Akash iyo Simi waxay ku xidhan yihiin isla qolka la haystayaasha. Simi waxa uu ku qoslaa aqli xumada xaaladda isaga oo ku tilmaamay mid khasaare. Akash dhankiisa ayaa sheegtay inay tahay tan ugu cabsida badan sababtoo ah markan waxay culays ku tahay Manohor. sida ugu fiican ee uga bixi karo xaalad waa inuu dilaa iyada. isla markaana dhakhtarku wuxuu marayaa warbixinta dhiigga Simi. wajigiisa ayaa ka iftiimay shay warqadda ku qoran oo uu si degdeg ah u aaday si uu ula kulmo meesha lagu dhunto Murle. waxa uu suurto gashay inuu helo boorsada lacagta laakiin Manohor waa toogtay ka hor inta aanu baxsan. Saaqu wuu soo booday oo ku damiyay kormeeraha wiishka isagoo xaday bacda. isla markaaba kadib waxay keentay Murle cisbitaalka laakiin aad buu uga fogaaday inuu badbaadiyo. waxay kale ogaatay in lacagta ay heshay ay tahay been abuur. dhanka kale Simi waxay ka furtay xarigga gacmeeda oo waxay weerartay Akash si ay u dishay isaga laakiin waxaa joojiyay Doriswami. waxay galeen halgan ku dhamaada markay garaacaan. dhakhtarku waxa uu geliyay jiridda oo uu u kaxaystay Akash ilaa Mumbai. jidka dhexdiisa waxa uu sharxay in Simi ay leedahay kooxda dhiigga taban ee BRH taasoo aad u naadir ah. gabdhaha taajiriinta ayaa aad ugu baahan beerka qof sida Simi oo kale. haddii ay iibiyaan xubinteeda waxay heli doonaan in ka badan $50 milyan. Akash waxa uu ku samayn karaa wax kasta oo uu rabo kala barkeeda. xitaa waxaa lagu talaalaa cornea. si kastaba ha ahaatee ma dareemayo sax sababtu waa inuu Simi u dilo beerkeeda. gabadhu waxay si lama filaan u gooday 2 sano kadib. Sofia waxay fasax ku joogtaa Yurub kadib markii ay ilowday wax kasta oo ku dhacay Akash laakiin tagtadii ayaa daba socota iyada markay aragto boorka isagoo ka baxsan maqaayadda. waxa uu ku ciyaarayaa piano goobta baarka siduu u maleynayay sanad ka hor. Sofia waa ka hortimid wuxuuna u sheegay wax walba oo dhacay. dib u soo celintu waxayna tusinaysaa Swami iyo Akash oo u wada socda Mumbai iyadoo Simi jirkeeda ku jirta si uu sii qiyaas kale oo dejiyaa laakiin waa la soo weeraray waana la dilay intuu u sii socday. dabadeed Simi waxay weydiistay Akash inuu ka soo baxo baabuurka oo uu bilaabo inuu wado. waxay ilbiriqsiyo u jirtaa inay garaacdo markii xabadii la maqlay. waa isla qayladii aan maqalnay bilowgii filimka markii beeraleyda uu doonayay inuu dilo bakaylaha la sheegay ayaa ku boodaya muraayadda hore isagoo Simi ka dhigaya mid qalloocan oo shil gala. waxay ku dhimatay shilka. Akash waxa uu baska ku xiga u raacaa Mumbai